ninkan wuxuu qarash gareynaya $2 milyan si isaga loo diibto isbuucii kor wuxuu tagay dhakhtarka si loogu sameeyo Jackie balse dhakhtarka waxa uu sheegay ninkan inuu hay cudur halis ah maalmo kadibna uu dhiman doono ninkan markaan wuxuu dareemay murugo iyo cadaadis aad u fara badan markaas iyo naftiisa uu saxaxanaya contract si isaga loo diibo si xoogna uu fakaraya adigna daawad haylaan muuqaalkana laakiin oo saarto fikir dheer kadib xariifkan wuxuu sameeyay xiriir gowraan iyo xiriir soo bandhigana waliba isagoo mustaqbal nolol wadaaga labadooda shukaansigooda kaliya wuxuu ku qasaarinaya $100 milyan sababtoo ah wuxuu roo lacagtiisa uu ka cayaaro kadibna sidaas ku dhintay sidoo kale kambanigiisna isku gadaa ninkan sababtoo soo sameeyay waxa taa si isaga loo dilo nafta loo dhaafiyo markaas ninkan ku codsanaya inuu dil balse isagoo ku diiday kadibna soo baxay xulimaan halkaanna waa kambaniga dilalka yani hadaad baanta lagu dilkan iimaanaysa qof kale lagu dil hadaa baanta halkaan iimaanaysa markaas haweeneyda contract la saxaxanay iyadoo wali buraadinaysa dilay aan caadi ahayn iyagaas inuu helaysa waxaana ku dhehaysa caawda shaqada dhexda lagu iimaanay kadibna qoftiisa iimaanaysa niyada uu ku dilay wuxuu ku dhaaniga adiga kuma baani mana ku jecel kadibna ay ka soo tagaysa wali banhaayada murugaysan isagna baarka iska iimaanaya si uu cabo qamri isla ma filaan hamar waxa soo wacay dhakhtarkiisa wali ban isagoo uu sheegay in la sameeyay qalad oo ah isagu waxa la siiyay bad khaldan manahan qofka dhiman raba isaga waxa loo sheegay caafimaadkiisa inuu qabo sidoo kale waxa soo dhawaad waqtiga isaga la dilay laakiin waxa ka dhiman 4 daqiiqo markaas xariifkan wuxuu go'aansanay meeshan iskaga soo cararo sidoo kale waxa soo baxay dilayaal kuliban ayagoo soo qaadanay hubabkooda si ay isagu soo dilaan markaas isagana fikiray ayagoo idil uu soo jaray waliba isagoo rabo inuu soo aado meel kale daqiiqadaha uu ku dhiman lahaa ninkan kaliya waxa ka haray waxyaabo aad markaas xaafadiisa maanaan weyna ka weynayaan